waayahay bismillah arday soo dhawaada insha allahu cashirka hore waxaan kusoo qaadanay waxaan soo diyaarsanay online code editorkeena soo diyaarsanay sidoo kale waxaan soo abuurnay ama aan soo save garaysanay waxaan soo abuurnay ama aan soo save garaysanay filkan ugu horeeyo first.java extensionkaasa u sameyn .java okay meeshana waxaan ku qoraynaa java codekeeda aan ku qoraynaa maxaan u baahanahay keywordskaan u baahanahay marka aan java codekeeda qorayo maxaa kamid ah macnaha kow waxaan sameynaa horta failka aan save garaystay aan ku jiro aan magaciisa sheegaa macnaha keywordka ugu horeeya aan qoraayo waxay tahay public okay public sideedaba markii la joogo programmingka public waxaa waaye waxaan in meel walba la access garay karo okay meel walba la geli karo marka maadaama failkan uu yahay failkii weynaay oo maxay ahayd aan codekii oo dhan hoos imaanayo waxaan leeyahay marka public aan leeyahay okay public markaa dhaho kadib waxaa raacsiinaa keywordkan waa class java keywordska mar walba waxay ka bilaabaan lower case ka bilaabaan macnaha java okay java markii la joogo java keywords waxaa leenahay always start with lower case keywords mar walba waxay ka bilaabdaan lower case ka bilaabdaan marka class waa keyword public waa keyword public class marka intaas dhaho kadib intaa marka waxaa raacsiinaa failka aan soo abuurtay ee java ee taa raacsiinaa macnaha failka waxaa waaye first marka hadda sidaan u qoraayo markii maxaa yeelay naming conventionka ahaan java mar walba maxay ahayd classeskeeda waxaa laga dhigaa capital okay classeskeeda waxaa laga dhigaa capital marka sidoo kale failka aan soo abuurtay fta capital ay tahay marka first capital aan ka dhigaa marka fta first marka intaas qor kadib waxaan leeyahay waxaan furanaa calaamadan oo maxay ahayd open bracket kana furanaa okay open bracket kana furanaa keyboardka waxay kaga taalaa enterka waxay kaga taalaa double quotation dushiisa kaga taalaa marka open bracket ka afur kadib waxaan leeyahay enter markaa dhaho meeshana marka classkan hadda abuurtay failkan uu ii sheegaa macnaha okay java codekeeda meeshaan ku qori karaa laakiin sida java codekeeda xitaa hadda meeshaan ku qoro ma ii shaqeynaa macnaha ma ii ranmadow wuxuu u baahan yahay waxa loo yaqaano main method u baahan yahay code walba oo java uu shaqeynayo ama rangareysmayo main methodkaas ayuu ka kacaa macnaha saa darteed waxaan keensanaa main methodkaasaan keensanaa main methodka waxaan keensanaa keywordka waxaan ka bilaabaa public markaa qoro in meel walba la access garay karo kadib waxaan ku xijinaa keywordkan kale oo loo yaqaan static waxaa laga wadaa macnaha static keyword waxaa laga wadaa in maxay ahayd waxaan static lagu sheegay in la wici karo adigoonan instance ku sameyn ama adigoonan object ka abuurin aad isticmaali karta aa loo yaqaana static macnaha waa arkayna markaa methodski waxyaalahaas aan gaarnaa si fiican u fahmi doona static laakiinse hadda qaybta noogu soo gashay static waxay tahay functionkan methodkan static ka dhigayna horta waxyar method iyo function aan dhahoyaa classeska markii la joogo classeska markii la joogo function waxaa la dhahaa method alla macna magacaas u leeyahay functions and method magacaas u leeyahay macna okay luqadaha kale sida PHP oo kale ama JavaScript waxaa ku arkaysaa mar walba function laakiinse markii la joogo Java oo kale object oriented oo kale ama markii la joogo classeska function waxaa loo yaqaanaa method marka main method aan u baahanahay waxaan leenahay marka main method waxaan ku keensanaynaa public ahaado static in isagoonan object laga abuurin la isticmaali karo failkan ama methodkan la isticmaali karo marka intaas qor kadib waxaan qoranaa void isticmaal keywordkaas kala qoran void iyadana waxay tahay keywordkan void iyadana waxaa loo isticmaalaa markuu methodka aanan return u isticmaalin aadan waxba soo celinayn macna methodka dabcan ama functionka markii la abuuro return waxyaabuu soo celiyaa soo maahan markaa return u isticmaalaysa laakiinse markaad void aad dhahdo waxaa waaye functionkan waxba ma ii soo celinaya waa macnaha okay kodkiisa cala duula u isticmaalayo waxba ma ii soo celinayo marka void waxaa loo isticmaalaa methodyada loogu talagalay inaysan waxba soo celin okay return keyword iyo qaabka u shaqeysana waa arkayna insha Allah casharada methodska iyo si fiican ugu fahmayna laakiin hadda inta ugu horeysa intaan waa public
in waxaa meel walba laga arki karo static inuu yahay aan instance la'aan ama object la'aan aan isticmaali karo void inuu yahay waxba uu iisoo celinin marka intaas aan qor kadib waxaan qoranaa marka magaca methodku ah main. Okay, main magaca methodka main marka intaas qor kadib waxaan leeyahay waxaan furanaa open qoyskaan furanaa oo ah shift iyo number 9 markaas fur kadib waxaan qoranaa array of string. Okay, data type loo yaqaan string esta waa capital macnaha. Okay, string esta capital waaye data type dhamaan capital ma aan xarafka ugu hore laakiin string xarafkeedu waa capital esta ugu hore string aan leeyahay string markaa sidaas u qoro waxaan samaysanaa marka calaamadda arrayga oo java markii la joogo array marka la abuurana waxaa lagu yaqaanaa java markii la joogo array waxaa lagu yaqaanaa macnaha calaamadahan. Okay, labadan calaamad labadan calaamad oo iska soo horjeedo waxaa loo yaqaanaa array macnaha java markii la joogo marka arraygaas isu qoranaa markaa saas u furto kadib intan waxaa kusii xijinaysaa argis oo laga soo gaabiyey waxa loo yaqaana argument. meeshaan marka koodkan marka waxaa laga wadaa string inuu array of string waxaan inay serious ay yihiin main methodka kood badan aad ku qoraysid sidoo kale arguments maxay ahayd inaad u isticmaalayso marka waxaa asal ah marka main methodkan inaad keensatid si aad java code kale u qortid marka intaas aan soo diyaarsado public static void main string argis intaas aan soo diyaarsado kadib waxaan furanaa shift waxaan la taabanaa open bracket la taabanaa kadib waxaan leeyahay enter halkaana marka waxaan ku qori karaa java program halkaana ku qoraysaa. Okay, waxaan rabnaa marka hadda inaan hello world aan qorno ama hello world aan soo bandhigno functionka ugu fudud oo wax noo soo bandhigayo markii la joogo java waxaa waaye system.out.println system marka s capital waaye s system.out.print kaligeed waa dhihi karaa laakiin maadaama aan rabo inaan maxay ahayd aan len cusub oo mar walba isticmaalo waxaan leeyahay system.out.println. Okay, kadib qoysaan furanaa waxaa intaan aan gudaha labadan qoys dhexdooda waxaan ku sheego waxyaabahaasoo noo soo bandhiga macnaha. Okay, haddii aan rabo hadda string inaan ku sheego string horta sideeda maxaa la dhahaa ya jamaaca mar walba string aan dhahaa soo ma string waxaa la dhahaa how to store computer text. Okay, computerka ama waxaan inuu text noo save gareynaa waxa loo yaqaan string marka text markaan rabno inaan stringaas soo bandhigno waxaan isticmaalana waxa loo yaqaan double quotation kaliya taa isticmaalno wana gadiida macna markii maxay quotation kaliya markii java la joogo waxaa loogu talagalay kaarka ama inuu kaar soo bandhigo datatypekaas soo marka waxaan u baahanahay double quotation. Okay, double quotation kadib meeshaan waxaan ku qoranaa hello world kadib len walbo java la qoraayo waxaa waajib ah semicolon inay u dambeyso macnaha. Okay, had programkayga waa diyaarsaday waxyaabahan hadda waxay kula muuqdaan xoogaa waxyaabo complex inay yihiin laakiinse markaad in badan aad codes fara badan aad qorto aad projecti aad ku samayso waxaas arkaysaa adigoo si fiican aad u fahamtaas arkaysaa marka hadda marka ugu horeyso yaa lagu wareerin insha allah. Okay, kadib adoo si fiican u fahmaysa arkaysaa hadda marka sidan waa diyaarsaday hadda marka haddaan ran aan dhaho marka hadda waxaa ii soo baxaya marka wixii aan qorto waa kana hello world intoo igaaga soo baxay hadda ma ii save garaysna waa save garaysana macna waxaan leeyahay control s aan leeyahay kadib wuxuu i weydiinaa meel aan projectigan wax aan u bixiyay macnaha waxaan leeyahay basics markaa saas u qorto kadib waxaan leeyahay save markaa dhawaa kana hadda basicgaas uu save gariyay. Okay, waxaan qornay marka hadda koodkeena ugu horeeyay aan qornay oo java aan qornay macnaha hello world aan soo bandhignay intaanaan u isticmaalnay class public static void main methodkan string arrays arguments system.out.println hello world.
cashirkeena marka halkaasaan ku keenayna insha allah. Waxaa rajeynaa wax un inaad ka fahamtiin. Dabcan haddaa si fiican xitaa haddaad u fahmi weysaan insha allahu cashirada kale ayaa si fiican aa usii fahmaysaan oo lasii qabsanaysaan. waa adigoo ku celceliya oo sii barbaratikeeya insha allah.